magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa hoy waxa uu ahayd dagaal sokeeye waxayna geysan jireen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed oo baahsan waxaana hakad gali jiray horumarkii socday 3 sano ee ugu dambeysay ayaa magaalada Gaalkacyo waxa laga dareemayay horumar kala duwan ana ku soo badanayo garoomada kubadda cagta ee loo yaqaan Sallaxa garoomada ayaa qayb ka qaatay isdhexgalka bulshada reer Gaalkacyo Shariif Salaad Nuur waa mid ka mid ah mulkiilayaasha garoomada Sallaxa ee kubadda cagta waxa uu ka sheekeynayaa ujeedka loo aasay iyo doorka ay ka qaateen isdhexgalka iyo horumarka Gaalkacyo. Bismillahir Rahmanir Rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacayga waa Shariif Salaad Nuur ahna managerka garoonka Sallaxa labada Sallax Gaalkacyo Football Center 1 iyo Gaalkacyo Football Center 2 garoonkan labada garoomadan waa kala horeeyeen garoonka wada hadda arkaysa waxa la furay sanadkii 2017 bishii koowaad kadib markaa aragnay baahida ka jira gobolka iyo si loogu baahan yahay dhalinyarada isboortiga sanadkii 2017 bishii 12 kii labaad dhex taagan ayaa furnay aad baan u faraxsanahay maadaama meeshan garoomo Sallax ay ka jirin deegaanada Galmudug oo degmada Gaalkacyo oo yahay Sallaxyada ugu horeeyay aan ka hirgelinay meeshan dadka bulshada aad u soo dhaweeyeen baahida u haasata taas waa mid koowaad way muhiimada waa iyada way mid labaadna waa ka ahayd dhalinyarada isboortiga inay ka faa'iideystaan saashay sidoo kale dadka waaweynka oo cuslaaday iyo dadka ganacsatada waa baahiyooyinka ugu muhiimsan way meesha loo furo way maadaama dadka aysan lahayn meel culus ku dhimaan waana dadka ugu badan oo waqtigooda qaaliga galiyo way meeshan oo 4 saac ku dheelay dadka subaxii dadka galabkii iyo habeenada qaarkood aad waxa isleenahay horumarkii uu koowaad ku talaabsay degmada Gaalkacyo waa garoomadan weeye wixii kala hadeer maadaama magaalada kor u socoto hadeer waa midii koowaad aan ku bilaawno weeye waana ku faraxsanahay inaan noqono tiimkii ugu horeeyay meeshan ka asaasa horumarka degmada Gaalkacyo ee garoomada Sallaxa waxaan ka faa'iideystay dhammaan kaliya ma degmada Gaalkacyo waqooyiga dad kamid ah meeshan way yimaadaan oo ku dheelaan waana ka ahayd muhiimada koowaad aan meesha u furnay inay tahay isdhexgal bulshada laga helo oo maadaama dhalinyarada meeshan waxa batay hoolihii tahriibkii waxa batay isbaarooyinkii waxa batay muqaadaraadkii saas leenahay 3 sano ee labada garoon ay furan yihiin waxyaabo badan baa dhalinyaradii ay ka soo laabteen maadaama waqtigooda meesha ku bulanaya laakiin dhalinyarada hadday helin meel badan oo waqtigooda ku dhumin waxay noqonaysaa inay tahriibaan ama ay isbaarooyinka tagaan ama ay jad cunaan laakiin hadeer waxaan ku faraxsanahay oo aan aaminsanahay oo dadka deegaanka oo adaa wareystaan iyo bulshada reer Galmudug qaasada degmada Gaalkacyo wareystaan in garoomadan ay ka qayb qaataan dhalinyarada horumarkooda iyo nidaamkooda bilicsa cilintooda degmada qaar ka mid ah dhalinyaro ku ciyaaraysa garoonka kubadda cagta ee Sallaxa ayaa waxay ka hadleen kaalinta ay ka qaateen garoomadani. Bismillahir Rahmanir Rahiim magacaygu waa Ridwaan Maxamed Nuur waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Gaalkacyo runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada fikirkan keentay garoonkan aad ku quruxda badan macbilka sameysay waana wax dhalinyarada runtii u baahneed waana fikir wanaagsan waana wax entertainment iyo u baahan yahay dadku caafimaad ahaan iyo maskax ahaan in banooni dheelaan jimicsadaan aniga ahaan runtii aad baan u jecelahay inaan banooniga dheelo maxaa yeelay jimicsi weeye marka aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada ku dhiiratay barnaamijkan waana wax deegaanka u baahnaa sidaas lamadan waxa rajeenaya dhalinyarada kale ee jaamacadaha soo dhameysay oo aniga ka mid ahay in ayaguna fikir la mid ay keenaan. Rahiim magacayga waxa la Faarax Khaliif Caashi waxa ku suganahay Gaalkacyo meeshan waa Gaalkacyo mataqaana fitness center waa garoonka u jeedin waa garoonka waxa waaye oo maxaa la yiraahdaa shaqo abuur bi dhalinyarada u tahay dhalinyarada qaarna waxay u noqon kartaa mataqaana dhiirigelin in dhalinyarada ka horeyso dhalinyarada aad oo maxaa la yiraahdaa shaqada maanta abuurto oo meeshan oo maxaa la yiraahdaa entrepreneurship baa la yiraahdaa hal abuur baa lahaa marka dhalinyarada ku maasan yihiin midka kalena dhalinyarada anigu waxa ka midnaayo jaamacad soo dhameyso oo shaqo la'aanta waxay noo tahay fikir fiican noo tahay in dhalinyarada ka faacin inaan ku dayano oo macana ku diirisano inaan maxaa la yiraahdaa wixii sameeyaan oo kale wax aksi oo kale na sameeyno aad u faraxsanahay in maanta meeshan oo maxaa la yiraahdaa oo garoonkan halfka oo roog loo yaqaano inaan ku dheelo aan maxaa la yiraahdaa niyadeyna iyo waxay inta aan meel kale ku mashquul lahayn inaan horta jimicsi waxaan ku mashquulno garoomada la dhigay cawska macmalka ayaa qayb ka qaatay yareenta dhalintii dalkooda ka tahriibi jiray iyo ku mashquulida balwada. Maxamed Cabdiraxmaan Soomaali TV-ga CNA xaruntiisa Gaalkacyo.